subaxnimadii talaadada ee 21 Oktoobar 1969 saacadu markay ahayd 3 aroornimo waqtiga Muqdisho kuna beegnayd 24 saac kadib aaskii madaxweyne Cabdirashiid Cali Sharmaarke ayaa ciidamada militariga iyo kuwa booliiska iskaashanaya waxay qabsadeen dhismayaashii muhiimka ah ee dawladda ee ku yaalay magaalada Muqdisho waxay la wareegeen idaacaddii reediyo Muqdisho iyo jidadka waaweyn ee ka baxa ama laga soo galo magaalada haddaba maxaa soo dadejiyay afgambigan sidee ayaase loo qorsheeyey aynu dib ugu laabanno sanadkii 1967 iyo doorashadii madaxweynenimada Soomaaliya bishii Juulaay 1967 waxaa xilka wareejiyey madaxweynihii hore ee Soomaaliya Mudane Aadan Cabdulle Cismaan oo uu doorashada kaga adkaaday ra'iisul wasaarihiisii Cabdirashiid Cali Sharmaarke waxay ahayd taariikhda Afrika markii ugu horeysay ee madaxweyne uu si nabadgelyo leh u wareejiyo xukunka inta doorasho looga adkaaday sida ay qoreen taariikhyahanada Soomaalida waxaa farxadda xil wareejinta nabadgelyada ku dhacday garab socday aafooyin kale oo ay ka mid ahaayeen musuqmaasuq ku shubasho iyo qabyaalad minjaha goynaysay dimuqraadiyaddii curdinka ahayd tusaale ahaan waxaa la sheegay in doorashada ay isku soo taageen ilaa 86 xisbi oo badankooda la sameeyey intii ay doorashadu socotay dhammaantoodna ka soo farcamay 3 xisbi ee Somali Youth League, Somali National League iyo Somali National Union Cusmaan Maxamed Jelle waxa uu la shaqaynayay wasiirkii arrimaha gudaha Yaasiin Nuur Bidde oo qaabilsanaa doorashada waxaana uu ku sugnaa taliskii booliiska oo lagala socday doorashada waxa uu iga sheekeeyay musuqmaasuqa doorashada ee uu isagu indhihiisa ku arkay waxaan goobjoogaha waxyaabihii dhacayay oo cabashooyin ah oo goobaha codbixinta ka imaanayay haddaan tusaalaga kuu soo aado Yaasiin Nuur Xasan u naxariistee degmada Jahiima lagaa ayuu gaalkaayo ka gooyey si mataqaanaa kursi gooniya loo siiyo waxaa doonay inuu iska garab xikaxo nima alaaba ahaayeen aada xuseen gusaa la dhihi jiray ninkii iyo dadkii u batay intii anay magaalada gaarin ayaa amar lagu siiyey in anay magaalada soo geli karin si kastoo ninkii u dacwooday taal buu noo soo diray waa noo yimid guddigii baa ka fadhiyey haddee wasiirka gudaha ayaa noo ah guddoomiye waana ninka meeshiinu kadib ka soo geli doonayo sababa baad la socotaa in loo digay baydhabo inuu xataa liiskii doorashada gudbiyo laba nimo odagaaloo ka horeeyey oo ahaayeen shuuxada jimaal allahu naxariiste oo xisbiga SNC lagaa madaxuu ahaa jiray iyo abdeedaa xaaji xuseen iyagana waxa ay go'aansadeen inay soo gelin baarlamaanka taasoo kaliftay inay axdaabtooda laba meelood ka kalaxaan abdeedaa xaaji xuseen waxaa laga rasaxay galoowe iyo galkaayo haddii meel loo adkaado sigaanu meesha kale u siigin shuuxada jimaalada beledweyne iyo buulaburto qodobkan musuqmaasuqa waddanka ka jiray ayaa haddaba noqday kan ugu weyn ee gundhiga u noqday inay isku yimaadaan koox saraakiil militari iyo booliis ah oo ay damcaan inay talada waddanka la wareegaan waxay ahayd arrin ku qancisay saraakiishii inaysan dimuqraadiyad wanaagsan aysan ka jirin dalka sida uu sharaxayo Axmed Suleymaan Cabdalla oo ku magac dheer Axmed Suleymaan Dafle waxa weeyaan horta dimuqraadi kama jirin waxay ahayd fawda waxaanay ahayd qabiil waxa keenay 88 bay ahaayeen sidaan anagu tirada ku ognahay xisbi waxay ahayd 88 qabiil weeye bay ahaayeen nin waliba intuu geesiisa isu taagay iyo qabiilkiisii la baxay oo uu doonay inay doortaan waxay noqotay inaynu dib isu eegno sidii aynu baadiyaha berigii hore aynu ku ahaan jiray oo innagii aynu iska horjeesano oo dagaalano waa gartay wax yar iga tilmaan marka dhibaatooyinkii jiray markaad hoos u sii gasho xilliga ka hor intaan militarigu talada la wareegin dhibaatooyinku waa badnaayeen waxa weeyaan horta budgetku wuxuu ahaa 290 milyan buu ahaa wuxuu fund u isticmaalay caynkaas ah oo wax la yiraahdo political fund 54 milyan baladaday oo aan wax allaale waxay dawladu qabteen wax allaale waxay tacliin u qabteen wax allaale waxay meel u qabteen aanay jirin rag uun la siiyey oo isagu siyaasiyan maaragta wax kaga doonayay waa ra'iisul wasaarahaasi waa kee waa ra'iisul wasaarihii markaa ugu dambeeyay sogolamis gacanka horti Maxamed Ibrahim Gaal ministerada qaar bacaankaas ahaa ministerka dakhilka ahaa oo isna fundkiisa lahaa oo ama
يعني سباس وحي استعمالي كري سو قرميسي haddaba cidda iska lahayd fikradda hore ee ah in afgembi la sameeyo iyo goorta ay fikraddan dhalatay labaduba aragtiyo kala duwan ayaa laga qabaa umana badna in barnaamijkani xalliyo kala duwanaanshaha fikradeed ee arrintaasi waxaase saraakiisha badankooda ay isku raacsan yihiin in fikradda in isbeddel awoodeedu ka dhaca soomaaliya ay bilaabantay wax yar uun kadib doorashadii 1967 cabdi warsame isaaq ayaa ii sheegay inuu ku jiray 7 sargaale ugu horreysay ay ku dhalato in inqilaab waddanka laga sameeyo saraakiishii uu magacyadooda ii tiriyeyna kuma jirin taliyihii ciidanka xoogga dalka sarreeye gaas maxamed siyaad barre anugu sarkaal baan ahaa marka taliyihii waxaan ahaa gaarsoonka oo kismaayo ciidamada kismaayo degan ayaan madax u ahaa sidee baad ku ogaatay in afgembi uu dhacayo ka hor intuusan afgembigu dhicin aniga nafsirkayga ayaaba abaabulka maaragtay ku jiray oo sameeyey dhalinyaro oo kooban oo saraakiil ah meelaha kala duwan maaragtay joogay ayaa maaragtay isxilqaamay marka waa is abaabulnay annagoo dhowr aniga aan ka mid ahay oo kula hadlaay ismaaciil calawkar axmed saleemaan cabdalla maxamed cali shire maxamed cumar jees cusmaan jeelle muxuu ahaa aniga haddee waa ku jira cabdi warsame isaaq aniga bilowgii hore waxaana ilaa 7 maaragtay maxamed siyaad barre mayd ku jiray odiga xogo markii dambe oo howlaha maaragtay ay soo yara shacbaxayeen qasab bay ahayd maaragtay muxuu ahaa annagoo meelo badan fiirinay inaan maaragtay muxuu ahaa asaga maaragtay aan la kaashano sababta waxaa weye saad og tahay inqilaab mar maaragtay wuxuu dhacay 1961kii xasan keyd uu hogaaminayay waqooyi ka dhacay marka inqilaabkaas waa fashalay sababihii uu ku fashalina marka waa tixgelinay sidaa daraaddeedna waxaa laga maarmaan ahaa taliyaha xoogga dalka inuu howshaas ku jiro horjoogihii kooxdaasi ka koobnayd 7 sarkaal ismaaciil cali abokor oo haatan ku nool magaalada hargeysa ayaan isku dayay inaan ka xaqiijiyo fikradda cabdi warsame isaaq hase yeeshee waxa uu diiday inuu barnaamijkani ka qayb qaato waxaase uu igu yidhi oon ka soo xiganayaa dadku waxay u qaybsanaayeen kuwa fikradda iska lahaa kuwa abaabulka lahaa iyo kuwo kale oo lagala kaashaday fulinta inqilaabka cusmaan maxamed jeelle oo ka mid ahaa raggaasi 7 ah ee uu xusay cabdi warsame isaaq waxa uu ii sheegay in inkastoo ay xusuusta cabdi warsame isaaq sax tahay haddana aan meesha laga saari karin inuu afgembiga fikirkiisa ku jiray sarreeye gaas maxamed siyaad barre laftiisa cusmaan maxamed siyaad anigu habeen baa marka gaarigiisa ugu waaday wuxuu doonayay habeenkaa bal in heshiis gaadho meel ku ogaada mawqiga ah in dalka laga sameeyo fican waxaan aadnay ilaa daafeed baanu tagnay waa ka nimid magaalada nimid waa gudubnay balcad baan tagnay waa soo laabanay isbitaalka laasirati markaan agmadayno oo intaa uun dhibaatada jirto oo dalka taagan iga sheekaynayo kuna dhici laayahay inuu wiilaano ilaab samayno ayaa waxaan furiday taliya aawna waxaad lahayd dalkaa sidaan laguma eegi karo xalna iimaadan sheegin maxaad xal haysaa waxba kama abee wuu ka gaabsaday inuu afka ku dhufto aan afgembi samayno anigu ugu soo celiyey 2 jeer maxay kula tahay anaa marka fu'iyey inaan afgembi samayno ayaa 2 man aad buu intuu farxay xoogaana isyagiisiya ayuu u yahlay saraakiisha xagga laga keena waadog sabaaba'aan dibutaadkaalkaa bi'iyey dibadabutaadku ku xiran yahay innaga inuu daabaanaysadaa filan la keene fikradda adigu maxaad ka cabtaa haddii anigu inkastoo aan weydiinayo isagoo udhiisuba batay laakiin aniga ii sheekaysnaayo inuu toos ila hadla diidaya saraakiisha kale aan ku waraystay barnaamijyadan badankood wax caad ah kama saarna cidda iska lahayd fikradda ah in inqilaab laga sameeyo dalka waa kan maxamed cali samater oo ku nool gobolkan virginia ee u dhow magaalada washington waxa uu ahaa sargaal ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga saraakiil kale oon la hadlay dad kale oon la hadlay waxay yidhaahdaan maxamed siyaad barre waxay ku daraan dadkii hawsha fuliyey abaabulka iyo curinta waxay iska lahaabay dhahaan saraakiil kale 7 sargaal oo ay ku jiraan ismaaciil cali abokor iyo maxamed cali shire iyo raggaas adi xataa kuma jirtid waa iska sheeko arrinta ninka odaga ahaabaa iska laha wixii kaloo dhan waa ku taageereen waxaa haddaba fikraddaasi si weyn ugu raacay maxamed cali samater axmed sulaymaan dafle oo isagu ku nool dalka beljamka fikradda ugu
muddo waxa iska lahaa maxamed siyaad barre isagaa dadkaasoo dhan isu keenay oo qalqaaliyey wuu yeedhay waktigaa 2 sannadood laga joogo waxa weeyaan ismaaciil ninkii ugu horreeyey ee raggayaga ka mida ee uu u yeedhay buu ahaa koow buu ahaa waxaa la soo gaaray 15 Oktoobar 1969 madaxweynihii waddanka Cabdirashiid Cali Sharmaarke oo booqanaya dhul abaaro ba'an ay ku dhufteen oo ku yaala gobolka Sanaag ayaa lagu dilay magaalada Laascaanood madaxweynaha waxaa dilay mid ka mid ah askartii ilaalinaysay hase yeeshee cidda dilkaasi qabanqaabisay iyo ujeeddada ka dambaysay labaduba waa hurgumo siyaasadeed oo la maarayn kari waayey ilaa maanta dilka madaxweyne Cabdirashiid Cali Sharmaarke waxa uu fursad weyn u noqday saraakiishii in muddo ahba ku soo taamaysay inay waddanka taladiisa la wareegaan hadafka saraakiisha ee la wareegista taladana waxaa sii kaabay markii 20kii bishii Oktoobar saacada uun kadib aaskii madaxweyne Cabdirashiid Cali Sharmaarke ay shir degdeg ah yeesheen golihii baarlamaanka balse ay ku guuldaraysteen inay madaxweyne doortaan waxaa la isku mari waayey in madaxweyne loo magacaabo Xaaji Muuse Boqor oo ahaa musharax uu si weyn u taageerayay ra'iisul wasaare Maxamed Ibraahim Cigaal waa kan Axmed Suleymaan Cabdalla oo ka warramaya fikradda ku jirtay maskaxda saraakiisha inqilaabka wadda xilligaasi dilkii way ku baagantay ama ka faa'iideysa ha noqoto ama wax saxiid ha noqoto soo garmaysid wax saxiid baanay ahayd maalintii waa la isdili lahaa haddii maxaan ku idhaha Soomaaliya la yidhaahdo waxbaa la dooranayaa baarlamaanka gudihiisa la isku leen lahaa saraakiisha militariga iyo booliiska isugu jirtay waxay go'aansadeen in habeenkaasi ay fuliyaan qorshihi ay muddada sanooyinka ah soo maleegayeen maxamed cali samater ayaa ka hadlaya xusuustiisii markaasi iyo jawigii ka jiray magaalada Muqdisho kusoo bood ma suuroobayso xukun baa lala wareegaya oo dhibaatadiisa leh oo mushkilada laga hor imaan karo oo khasaare iyo dhiig badan oo daato dhici karo waxaas waqtigaas ugu soo aaday waxa weeye xukunkii dalka waxaa dhacday faaruq madaxweynihii waa dhintay madaxweyne cusub lama dooran waxaa habeenkaa loogu aadiyey waxaa waaye berri waxaa dhici karta in la doorto madaxweyne cusub oo markaa ay noqoto madaxweynaha cusub in eed laga galo sidaa aawadeed wakti uu jiro faaruq xukunkii ayaa lagu beelay waxaan joogay taliska xoogga dalka Soomaaliya oo markaas xerada Afisyoona ku yeelay waxay ahayd maalintii la soo aasay madaxweynihii dhintay Cabdirashiid Cali Sharmaarke dabadeedna ragganagii arrimahaas ku jiray oo maamulkaas iyo abaabulkaas iyo ku jiray waan iska aragnay waxayna nagula habboonaatay in habeenkaas la fuliyo hawshii qorshaysneed subaxnimadii hore ee talaadadii 21 Oktoobar saacadu markay ahayd 3 subaxnimo ciidanka iyo booliiska Soomaaliya waxay la wareegeen gacan ku haynta goobaha muhiimka ah sida dhismayaasha dawladda idaacadda Radio Muqdisho jidadka soo gala iyo kuwa ka baxa magaalada Cabdi Warsame Isaaq ayaa ii sharaxay sidii ay arrintaasi u dhacday gudoomiyihii markaa baarlamaanka Sheekh Mukhtaar baa maartay siihayaha ahaa madaxweynaha asna wuxuu amray wadanka maartay muxuu ahaa in nabadgelyadiisa la sugo adiga maartay ciidanka markiiba waxaa la geliyay heegan waa la diyaar garoobay in meelaha loo dhiibo rag dhalinyaro oo anaga fikirkeena maartay wata taangiga muxuu ahaa diyaar buu ahaa kulli meel raag la yiraahdo dekada agteeda diyaar bay ahaayeen ciidamada waxa la maartay xalanahaas iyo meesha maxay ahayd hiil weyno ayana commanders ku deganaayo wixii oo dhan diyaar baa lahaa marka nin hadda taariikhdiisa weli ay wax ka dhameeyeen oo salaad gabayr la yiraahdo ayaa maartay ahaa abaabulka hogaanka abaabulka joogay aniga ku xigeenkiisaan lahaa waxaan u dirnay maartay jeelle iyo Cusmaan Jeelle hadda ku sheegay taangiga muxuu ahaa gabayr iyo group kale iyo kullina ay operationkii maartay ayay kormeerayeen hawsha si u socdeen booliiska waxaa madax u ahaa qorsheel baa madax u ahaa qorsheel maxamed siyaada wada socdeen habeenkii oo dhan adiga saacad 9 saac markay tahay loo sheegay waxaa la yiraahday qorsheel ma raacaysaa masuwa dhinac kala aadaysa marka waxa yidhi war ma laga hubsatay meeshii taliska booliiska ahayd iyo meel sarandi oo ciidamada daraawiishta ay deganaayeen iyo waxaas oo dhan maartay muxuu ahaa waxaa lagu wareejiyay
beebeyaal iyo maaragtay hore baa loo qabtay marka waxaa la yidhi waxaas waa la qabtay howshaas waa dhantaa la yidhi adigaan maaragtay ku wargelinayna keliya howshana sidaasay maaragtay ku dhamaatay axmed sulaymaan dafle ayaan wax ka weydiiyey tallaabooyinkii ugu horreeyay ay ciidanku qaadeen adigu xilkaagu muxuu ahaa markaa jagadaadu maxay ahayd darajadaada anugu darajadeedu mijir bay ahayd gaashaanle waxaan ahaa maxaan ku idhahdaa sarkaal ka tirsan headquarterka maxaan ku idhahdaa gaashaandhigga oo qaabilsan wardoonka sirta ma maqashay military intelligence subaxdii markaa kacaan ku dhashay hawsheedu waxay ahayd anugu ninka qura dawladda yaqaanaan ahaa nin dhaac ku shaqayn jiray waddanka meel walba kaga jiri karay yaan ahaa ninka dawladda markaa ragga iyagii militariga ugu aqoon badan iyaga iyo meelahay degan yihiin baan ahaa dabadeed ninkii soo xidhxidhay ee iyaga loo diray inuu soo xidhxidho yaan ahaa yaad soo xidhxirtay marka xubno badan oo dawladdaa la xidhxiray kadib dawladdii intii ahayd oo dhan weli waxaa ku jiray kuwa aan markaa dawladda ahayn oo muse boqoriya lahaa iyo maxaan ku idhahdaa cabdirasaaq iyo aadan cadde iyo lahaa oo dawladihii hore ahaan jiray maxaa loo xirayana de waxaa loo xirayay maxaan ku idhahdaa yaanay kacaanka iyagu maxaan ku idhahdaa la dagaalamin waa ragga in xukunkiina dee markaa laga kaxeeyo yaa loo xidhay waxaanu ku xidhnay guri sharaf leh oo maxaan ku idhahdaa madaxweynuhu lahaa oo afgooye ahaa gurigaasaanu ku xidhnay saacaddu markii ay ahayd 6dii subaxnimo waxaa war cad laga akhriyey idaacadda reediyo muqdisho codka ummadda soomaaliyeed waxaana warkaasi cad lagu sheegay in tallaabada ay ciidanku qaadeen loo qaaday si soomaaliya looga badbaadiyo musuqmaasuqa iyo qabyaaladda ay ku dhaqmayeen dabaqadihii wax xukumayey waxaana dadweynaha loo sheegay in mar dhow uu soo gaari doono war wanaagsan subaxdiiba waddanka si fiican baan u qabanay markii waagu beriyey waddanku gacantayada ku jiray wax dhiiga kuma daadan badan iyo yar midna waxaanu subaxdiiba soo saaray xaashdi koowaad oo siyaasadii waddanka gudihiisa aanu ku dhaqaynay iyo tii maxaan ku idhaha dibadda aanu kula dhaqmaynay intaba ay ku qeexan tahay waa subaxdii 21 October inay wax iska diyaarsanaayeen sida aad ku garanaysaa waa sidaa barqanimadii subaxdaasi 21 October waxaa soo baxay hadalkii labaad ee ciidanka waxaana looga dhawaaqay in dalka uu ka dhashay kacaan gallinkii dambe ee maalintaasi ayaa kulan ay saraakiisha ciidanku ku yeesheen shir kale ofishaale waxaa magaca hogaamiyaha golaha kacaanka ku hadlay maxamed siyaad barre waxaa looga dhawaaqay in la aasaasay golaha sare ee kacaanka oo ka kooban 25 xubnood qabsashada xukunka ee militariga waxay ahayd mid ay dad badan markaasi soo dhaweeyeen sida uu xusuusto mid ka mid a macallimiintii dugsiyada sare ee magaalada muqdisho maxamed faarax jimcaale anuu markii kacaan ku dhashay waxaan shaqaynayay 1 sano iyo 6 bilood aad baa loogu farxay aad baa loo soo dhaweeyey tallaabadii ugu horreeyey oo qaaday waxay ahayd niman mutacalimiin oo dhalinyaro oo maamul yaqaan oo wasiiro ah baa markii hore wasaaradihii loo magacaabay runtii waxa weeye nin kasta oo wax bartay waa ku faraxsanaa rajaa gashay cadaalad inay soo socoto buu qalbiga gashay niyeystay waa gartay marka waxaad leedahay lagaba maarmaan buu ahaa kacaanku inuu yimaado ilaa waxay ahayd khasab bay ahayd laga maarmaan buu ahaa ubax baa meel walba rag dumar caruur oday nin walba ubax buu la soo kacay raggi in laga qabto nin walba oo Soomaaliya raalli buu ka ahaa dhibaato ay jirtay 9 sano wax cadaalad xumo ah oo aan loo adkeysan karin baa dadku maray dadka qaar waxay yiraahdaan dimuqraadiyad curdina oo koraysi ayaa wadanka ka jirtay haddii uusan kacaanku iman lahayn maanta Soomaaliya wadan ka bedelan buu noqon lahaa kan oo hadaya ma run maaha waxa soo socday anarkii baa soo socday hoos baa loo socday xageeba taafijadu mar haddaan doorashadii aysan ahayn cadaalad ahayn wax la dooran karin mar haddaan qofku inuu aqoontiisa ku talageli karin inuu shaqo raadsado wax rajaahoo soo socda oo runtii maaragtay dhinaca dimuqraadiyadeed iyo dhinac maamul iyo dhinac cadaaladeed iyo meelna wax wanaagi kama soo socon runtii habeen iyo maalin daharaad baa ku jiri jirta dalalka deriska la ah Soomaaliya iyo beesha caalamka inteeda kaleba gaar ahaan labadii quwadood ee markaasi jiray waa Mareykanka iyo Midowga Sofiyeed si taxadar leh ayay u fiirinayeen isbeddelka dhinaca awoodda ee ka dhacay Soomaaliya dhinaca siyaasadda dibadda golaha sare ee kacaanku si dheer ayay amuurtaasi uga hadleen
warkii caddaa ee ka soo baxayna waxay ku sheegeen inay raaci doonaan siyaasad meeldhexaad ah iyadoo xiriir saaxiibtinimo lala samaysanayo waddamada dunida. golaha sare kacaanku waxaa kale oo warka cad ay soo saareen ku sheegeen inaysan faragelinayn arrimaha gudaha ee dal kale balse ay si muuqata u taageeri doonaan halgannada dhaqdhaqaaqa xornimodoonka ah ee ku jira gacmaha gumaysiga. hadalkaasi dambe ee ay soo saareen golaha sare ee kacaanka waxaa nuxurkiisu ahaa in golaha sare ee kacaanku ay yabo toos ah u fidinayaan laba urur oo sheegay inay u dagaalamayeen dhaqdhaqaaqa xoraynta Soomaalida. labadaasi ururna waxay kala ahaayeen WSLF iyo ururkii la oran jiray ololaha xoraynta NFD. hadalkaasi kadibna afhayeenu hadlay dowladda Itoobiya ayaa maalintii xigtay afkambiga sheegay in madax sharaf Itoobiyaan ah oo xilligaasi magaalada Muqdisho u yimid aaska madaxweyne Cabdirashiid Cali Sharmaarke iyo diblomaasiyiin ka joogtay magaalada Muqdishoba inay la soo noqonayso. waxaa isna walaac ka soo yeeray dhinaca dowladda Kenya kaasi oo ku saabsanaa in militarigu aysan ixtiraami doonin heshiis colaad joojin ah oo 1967 ay kala saxeexdeen ra'iisul wasaare Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal iyo madaxweynihii hore ee Kenya Jomo Kenyatta. gudoomiyaha golaha sare ee kacaanka ahna madaxweynihii Soomaaliya waxa uu shukaantii siyaasadda Soomaaliya u leexiyay jiho ka duwan tii dowladdii isaga ka horreysay. waxa uu ku dhawaaqay siyaasaddii loogu magac daray hanti wadaagga cilmiga ku dhisan. Soomaaliyana waxa uu ugu yeeray waddan hanti wadaag ah. intaan la gaarin sanad guuradii koowaad ee kacaanka waxaa dalka la keenay boqolaal tababarayaal militari ah iyo xeeldheerayaal Sofiyeed ah. xaruntii ugu weyneed ee wakaaladda sirdoonka ee Sofiyeedka KGB ee qaaradda Afrika waxaa laga dhisay caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. si kastaba ha ahaatee si ay militarigu xidido ugu sii taagaan nidaamka ay la yimaadeen ee hanti wadaagga ah waxay qarameeyeen shirkado iyo mashruucyo dhowr ah oo ay lahaayeen shirkado iyo dalal shisheeye iyo weliba kuwa ay Soomaali leedahay. hantiyaha la qarameeyey waxaa ku jiray bankiyo, xarumo dhaqan, shirkado iyo hay-ado kale oo dhaqaale. dowladdii hanti wadaagga ahayd waxay bilowday inay xirto iskuuladii iyo xarumihii waxbarashada ee ay maamulayeen dadka ajaanibta ah. tallaabadaasina waxay qayb ka ahayd socodka hanaankii lagu hirgelinaya qoraalka farta afka Soomaaliga oo aan hore u qornayn. sanadkii 1972 ayaana markii ugu horreysay taariikhda dalka Soomaaliya la qoray farta afka Soomaaliga. arrintan ayay xubnihii dowladdaasi ku jira isku raacsan yihiin inay ahayd siyaasaddii ugu taabagalsanayd ee uu sameeyo kacaankii 21 Oktoobar. waa kan Axmed Saleebaan Dafle oo arrintaasi ka hadlaya. kushii ugu weyneeda kacaanku gaaray waxay ahayd af Soomaaliga la qoray 5% bay ahayd. maxaan ku idhaahdaa waxa wax qori kara ee wax akhriyi kara ummadda Soomaaliyeed markii hore af Soomaaliga ka hor. markii af Soomaaliga la qoray ummaddii wax qoraysay ee Soomaaliyeed waxay noqotay 7%. waa sanado yar gudaheed baynu sidaa ku noqonnay oo ku gaadhnay. waxa layna siiyey maxaan ku idhaahdaa prizes baa layna siiyey, World Prizes, UNESCO Prize of Literacy, waxa layna siiyey Shah Prize of Literacy boqorkii Shah u bixinayay ee Iran. isla sanadkaasi madaxweyne Maxamed Siyaad Barre waxa uu Soomaaliya ku daray ururka Jaamacadda Carabta. abaalgudna waxaa looga dhigay taageero badan oo lacag ah. 2 sano kadib 1974 waxaa dowladda Soomaaliya ay martigelisay kalfadhigii 11aad ee dalalka Midowga Afrika. waxaana madaxweyne Maxamed Siyaad Barre uu noqday gudoomiye sanadeedka ururka Midowga Afrika OAU. muddadii uu xilkaasi hayayna 2 waddan oo Afrikaan ah oo kala ah Angola iyo Mozambique ayaa xornimo ka qaatay gumaysigii Boortaqiiska.